bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada tabinteena maalinimo qodobada ugu waaweyn idin soo gudbi doonana waxaa qayb ka madaxweyne Farmaajo oo cadeeyay qorshaha xilka qaadis uu la damacsan yahay ra'iisul wasaare Rooble shir degdegana isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada maxuusalka ku haya khilaafka Farmaajo iyo Rooble oo soo shaabaxay shirka golaha wadatashiga qaranka oo bari la qorsheynayay in Muqdisho uu ka furmo oo dib u dhacay iyo sababta ka dambayso ayaan warkeedin kugu soo gudbi doonaa faahfaahin ka soo baxaya mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiil ciidan oo qarax Muqdisho ka dhacay ku geeriyooday mas'uuliyiin dawladda Soomaaliya xilal kala duwan ka soo qabto madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay inuu haatan damacsan yahay tilaabo afgambi oo dalka xoog kula wareegayo ayaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ciidamo fara badan oo maanta lagu arkay magaalada Muqdisho kadib khilaafka ra'iisul wasaare Rooble iyo Farmaajo ayaan warkeena ku tabin doonaa u diyaar garooba daawadayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan isku soo noqod wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo aynu faahfaahintooda guda galno haddii aynu ku bilowno madaxweynaha muddo-xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qorsheynaya inuu xilka ka tuuro ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble sida xogaha hoose aynu ku helnay Farmaajo ayaa damaciisa si aan gabasho lahayn uga cadeeyay qoraal uu soo saaray kaas uu isugu yeeray shir degdeg madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish madaxweynaha waxa uu ku baaqay in isugu yimaadaan shir wada tashi oo lagu saxayo jihaynta doorashooyinka kaas oo ay ka soo qayb galayaan golayaasha dawlad goboleedyada heer federaal iyo heer dawlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir si la isugu waafaqo hoggaanka awood u leh hirgelinta doorasho dhameystiran oo si hufan dalkan uga dhacdo hoggaanka uu Farmaajo doonayo in la isku waafaqo ayaa sida aynu xogta ku helnay loola jeedaa in uu ra'iisul wasaare cusub qorsheynayo inuu magacaabo ra'iisul wasaare Rooblena xilka uu ka tuuro kadib khilaaf xoogan oo maalmihii dambe soo kala dhaxgalay oo ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo sida loo ambaqaadayo madaxweynaha muddo-xileedkiisa dhamaaday ee dastuuriga ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo saaray qoraal uu ku eedeynaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uguna baaqay in shir degdeg ah arrimaha doorashooyinka dalka isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo asagoo u dhaxay doono Farmaajo ayaa eedeynta ra'iisul wasaare Rooble saddex qodob ku soo gabangabeeyay waxaana sheegay wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu ka soo bixi waayay mas'uuliyadii ka saarneyd doorashooyinka sidoo hadalka u dhigay Farmaajo ayaa eedeynta kadib saddex qodob ku soo gabangabeeyay qoraalkiisa waxaana sheegay wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu ka soo bixi waayay mas'uuliyadda ka saaray arrimaha doorashooyinka sidoo hadalka u dhigay madaxweyne Farmaajo ayaa ku baaqay shir degdeg oo looga arisanayo arrimaha doorashooyinka ay ka soo qayb gali doonaan madaxda dawlad goboleedyada heer federaal iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir balse ma sheegin waqtiga la qabanayo shirkaasi ama uu dhacayo Farmaajo ayaa sheegay inuu diyaar u yahay dhageysiga talooyin waxgarad iyo siyaasiyiin iyo bulshada rayidka ay qabaan ee la xiriira doorashooyinka sida uu ku soo gabangabeeyay qoraalkiisa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo warbaahinta la hadlay ayaana sheegay dhankiisa in dawladda Soomaaliya laga abaabulayo shirqoolo ka dhanay oo ra'iisul wasaare Rooble si loo dhaawaco doorashooyinka shirarka looga hadlayo sidii loo sixi lahaa qalaadka haatan taagan khilaafka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha muddo-xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa taagnaa toddobaadkii la soo dhaafay balse waxa uu xoogaystay kadib markii Rooble xilka qaadis uu ku sameeyay gudiyo ka tirsan khilaafaadka doorashooyinka ee heer federaal oo ka gudbay anshaxa iyo dhexdhexaadnimada doorashooyinka gudoomiyaha baarlamaanka 11aad Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ee haatan xilkiisu u dhamaaday balse mar kale xildhibaan loo doortay ayaa si toos ah u sheegay in heshiiskii doorashooyinka ee 2021 uu ku eg yahay December 2021 oo ilaanaysa jimcaha soo socda ee toddobaadkan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dhankiisa warbaahinta la hadlay hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa sheegay in abaabulka madaxweyne Farmaajo ee xilkiisu dhamaaday iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya uu yahay mid baalmarsan dastuurka dalka isla markaana haddii ku sii socdaan cawaaqib xumo iyo dagaal sokeeye laga dhaxli doono waxa soo xoogaysanaya khilaafka ka dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble kaas oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dhinaca kale waxaa baaqday shirkii loo ballansanaa madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Rooble oo 27 bishan aynu ku guda jirno oo bari ahayd ka furmaya magaalada Muqdisho shirkii golaha wadatashiga qaranka ee ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxda dawlad goboleedyada ee la filayay in uu bari ka furmo Muqdisho ayaa dib u dhacay wuxuuna wajahaya shaki badan oo ku aadan sidoo uu qabsoomi doono shirkaasi maadaama caqabado badan ay ku gadaaman yihiin shirkan ayaa dib loogu dhigay codsi ka yimid madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo sheegay inuu doonayo in marka hore uu dhameeyo xiisadaha dagaal ee ka taagnaa bariyihii dambe magaalada Boosaaso
waxaa hadda magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ku sugan madaxdii hore ee Puntland iyo xubno xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwa oo xal u raadinaya xiisadaha dani iyo u dhaxeeya Diyaano oo lagu soo afjaraya wada hadal sida aynu xogta ku helayno waxa qabsoomida shirkaasi ku gadaaman khilaafyo xoogan oo madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Roble dhankooda u dhaxeeyo maadaama la sheegay hadduu madaxweyne dani ka soo faaruqo arrimaha Boosaaso in shaki badan ku jira shirkaasi sidoo uu qabsoomi lahaa waxaana xogaha aynu helayna ay sheegayaan madaxda Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay khilaafeen shirka ra'iisul wasaare Roble ku baaqay kana soo qayb gali doonaan waa sidoo hadalka u dhigeen sababta qorqor iyo lafta gareen u diideen shirkaasi ayaa lagu sheegay halka qaadistii uu ku sameeyay gudiyada doorashooyinka doona shalay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka xilka laga xayuubiyay farmaajo ayaana xalay soo saaray baaq degdeg ah oo madaxda maamul goboleedyada shir isugu imaanayaan kaas oo ka dhici doona Muqdisho inkastoo si rasmi ah loo cadeyn ra'iisul wasaare Roble bilihii dambe waxaa muuqda in jilaafooyin xoogan ay dhanka doorashooyinka loo dhigayo taas oo fila Soomaaliya ay ku cadaadinayso in ra'iisul wasaaraha uu ku fashilmo arrimaha doorashooyinka haatan uu gacanta ku hayo sidoo dad badan qabaan khilaaf xoogan ayaa haatan soo dhaxgalay ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaada Farmaajo lama oga halka uu ku dambeyn doono tan ayaana haddii ay sii socoto saameyn togan oo xoogan ku yeelan doonta arrimaha doorashooyinka dalka ka socdo oo dib dhacyo badan oo hareeya dhankooda mugdi badan ayaa ku jira sida ay doorasho dalkan uga dhici lahayd oo waqtigeeda ku dhacdo maadaama ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaada khilaaf horle uu soo kala dhaxgalay gudiyada doorashooyinka dhankooda ay isku khilaafeen gudoomiyaha guddigaasna xilka laga tuuray markii la sheegay inuu maasuq iyo isdabamarin doorashada uu ku kacay markaana taliyihii amniga degmada Daynile iyo askar ilaalo u ahayd ayaa qarax lala eegtay ku geeriyooday waabayna dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qarax khasaare kala duwan geysto oo ka dhaca qaybo kamid ah degmada Daynile ee gobolka Banaadir kaas oo waxyeello xoogan ka soo gaartay saraakiil iyo askar ciidan qaraxa oo ahaa miina ayaa lagu soo waramaya in duleedka isbitaalka Daynile lagula eegtay gaari uu la socdo taliyaha amniga degmadaasi Cabdisamed Ugaas Xaashi Ugaas Faracade kaas oo la soo warinayo inuu u dhintay weerarkaasi loo adeegsaday ee qaraxa ahaa sidoo kale waxaa lagu soo waramaya in qaraxaasi ay ku dhinteen 3 askari oo gaariga u saarnayd taliyaha wararka ayaa sheegay in taliyaha iyo askarta la socotay oo geeriyooday inay ku sii jeedeen iyagoo gurmad ah halka loo yaqaan Saqiiro xilligaas oo ay ka socotay israasaasayn u dhaxaysa ciidamada ammaanka iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka ayaa gaaray goobta waxayna ka soo qaadeen meydka taliyaha iyo askartii la socotay kuwa oo isla maanta lagu aasay magaalada Muqdisho ilaa hadda ma jirto wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee ku aadan qaraxaasi lagu dilay taliyihii amniga degmada Daynile iyo qaar kamid ah ilaaladiisa degmada Daynile waxaa hore uga dhacay dilal iyo weerar qorsheysan oo qaarkood lagu beegsado mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale si gaar ah degmada Daynile iyo saraakiisha ciidanka wasiirkii hore arrimaha gudaha ee Soomaaliya Juuxaha ayaa afgambi ku tilmaamay tilaabooyinka madaxweyne Farmaajo maalmihii dambe qaadayo wasiirkii hore arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Saciid Juuxa oo haatan siyaasi Soomaaliyeed ah ayaa ka falceliyay qoraal oo xalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday kaas oo banaanka soo dhigay khilaaf horle oo ka dhaxeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo Juuxa ayaa warkiisa waxa uu ciwaan uga dhigay Farmaajo oo afgambiye filla Soomaaliya 21 sano oo dowlad dhis ahayd kadib waxaana sheegay in qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha oo ku laalaya heshiiskii iyo hanaanka doorashooyinka dalka xalay oo ahayd 26 bisha 12aad 21deeda saq dhexe Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo saaray wareegtadii koobaad ee afgambi uu ku laalayo heshiiskii iyo hanaanka doorashooyinka Soomaaliya taas oo ahayd kaliya xilligan in heshiis lagu yahay waxa uu wada ra'iisul wasaare Roble ayuu yiri wasiir Juuxa sidoo kale waxa uu tilmaamay in gabi ahaanba uu istaagay hanaankii dastuuriga ah iyo dowlad dhiska Soomaaliya kaas oo ka soo bilowda carta sidoo hadalka u dhigay waxa si buuxda u istaagay hanaankii dastuuriga ah iyo dowlad dhiska Soomaaliya oo ka soo bilowda carta 2000 ilaa 2017 waxa bilowday boob cusub ayuu yiri Juuxa isagoona ugu dambeyntii tilmaamay inuu tilaabada Farmaajo qaaday ay tahay afgambi labaad oo dhacay iyadoo wali aan laga soo kaban boogihii kii hore ka dhashay Soomaaliya kan waa afgambi labaad taariikhda siyaasadda Soomaaliya kii hore wali lagama soo kaban boogihii iyo sidoo kale haarihii ka dhashay ayuu ku soo gabangabeeyay falcelinta Juuxa hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli xalay madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday uu soo saaray qoraal lidii ku ah ra'iisul wasaare Roble kuna eedeeyay inuu gudan waayo waajibaadkiisii loo egmaday tani ayaana dhalisay inuu banaanka u soo baxay khilaafka labada mas'uul ee dalka ugu sareysa ka dhaxeeyo wasiirka hore arrimaha gudaha Soomaaliya Juuxa ayaa tilmaamay in Farmaajo haatan kaliya filla Soomaaliya u jooguna afgambi dalka ku qabsado haddii sida ugu dhaqsiyaha badan aan looga hortagin ay tahay rajada shacabka Soomaaliyeed inay mar kale dalka dib u laabto inta ayaana ku soo gabagabeynaa saaxiibayaal barnaamij wareedkeena kala socoteen channelka wararka Somali News waxa aragtidaada qaybta hoose comment-ga nagula wadaag muuqaalkana si share gareeyo saaxiibadaada kala gaarsii bogana ku soo bir haddii aad ku cusub tahay mahadsanidin